madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa magaalada Istanbul ku daafuray shirka madasha lixaad ee heerka sare ee Soomaaliya iyo beesha caalamka kaasoo looga hadlayo arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha xukuumadda, xubno ka tirsan golaha wasiirada, baarlamaanka iyo madax kale oo ka socota dowlad goboleedyada dalka iyo 50 dal iyo hay'ado caalami ah. madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ka mid ah madaxweynayaasha ka qayb galaya shirkan, isagoo hogaaminaya wafdi isugu jira ganacsato iyo diblomaasiyiin siyaasadeed oo Jubbaland matalaya. madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Turkiga ayaa si wadajir ah u shirgudoomiyay shirkan, iyadoo looga hadlayo horumaradii u dambeeyay ee ay sameysay Soomaaliya iyo taageerada ay u baahan tahay. waxyaabaha muhiimka ee shirkan lagu soo qaadi doono waxaa ka mid ah doorashooyinka sanadkan ka dhacaya Soomaaliya, kaasoo baarlamaanka cusub iyo madaxweynaha cusubba lagu soo dooran doono. madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay furitaanka shirka ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay door muuqda ka ciyaaraan taageerada Soomaaliya. shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa qiimeynaya dib u eegis lagu sameyn doonaa horumarka laga sameeyay barnaamijka hiigsiga cusub ee Soomaaliya, The Somali Compact, kaas oo markii ugu horeysay lagu ansixiyay magaalada Brussels bishii September sanadkii 2013. barnaamijka hiigsiga cusub ayaa waxaa ka abuurmaya iskaashi ku saleysan isla xisaabtan, wadaagida kheyraadka iyo mas'uuliyadaha ee dhinacyada Soomaalida iyo beesha caalamka si loogu hago looguna dhaqaajiyo ajandaha siyaasadda, amniga iyo horumarka Soomaaliya. waxaa sanadkii hore uu barnaamijkan ku tallaabsaday horumar la taaban karo dhinacyada siyaasadda, amniga iyo ajandaha horumarinta. madasha heerka sare ee Soomaaliya iyo wadamada ay iskaashiga leeyihiin ayaa laga filayaa in lagu taageero go'aanka dowladda Soomaaliya ee nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sanadka 2016 oo hadda aynu ku jirno inay ka doodaan khariirada la isku wada raacsan yahay oo ku saabsan doorashada 2020, dib u qaabaynta amniga, dardargelinta dadaalka dib u eegista iyo dib u qorista dastuurka federaalka, isla markaana wax laga qabto baahiyaha aas-aaska u ah dhinaca horumarinta si loo xaqiijiyo mustaqbalka nabadda iyo barwaaqada Soomaaliya. dowlad goboleedka Puntland kama qayb galin shirkan, welina si rasmi ah ugama hadlin Puntland shirka Istanbul. madaxweynaha Puntland oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ayaa u dhoofay magaalada Washington DC ee xarunta Mareykanka. waxaa xusid mudan in Puntland ay hore u qaadacday go'aankii Muqdisho